waxay isku hayaan booska afarta sare ee Champions League iyaga iyo koox badan oo Aston Villa iyo Chelsea ku jiraan iyo Liverpool toddobaadka Chelsea waa kuftay Liverpool waa soo badisay Manchester caawa bay ciyaari doontaa United iminku waxay ku dhibcan yihiin kooxda Chelsea iyo Liverpool laakiin haddii ay badisa Manchester United caawa labadaas baa jid cad bay kaga tagayaan marka caawa cid inay guuleystaan bay rabaan Casemiro habeenkiisa buu ku jiraa oo wuxuu habeenkiisa dhalashada inuu ugu dabaaldego gool wuxuu noqday maalinka 4 sano jir Saudi maxta waxa la Casemiro koobka adduun kadib wuxuu qiimeyn doonaa ciyaaraha Mareykanka Inter Miami xataa way doonayaan oo uu ka fariistay ninka la yiraahdo Sergio Busquets Messi waa laga dareemay durba guul daro ku furtay oo Alba ka retire garoobay iyo Busquets marka waa xataa Messi Saudi waraawo ku kacay ee uu garsoorka la dagaalamayay marka waka Casemiro man ilaabi kartid habeenkii ku beeganta 3 sano ka hor markii Man United ay ka reebtay Europa League Barcelona the goat waxa reebay Anthony hada ilooday Benoni waa kaasna calaabo gnimadiisa bal fiiri in tiin haysto waxa ku dareemaysaa macnaha Benoniga mar xasra soo ciyaar xataa oo mar reebtay Barcelona ma inad ma reebtayna as leedahay halka mar Barcelona Europa League ay ku sirmatay mar dhaxdaas حتى وسوق هذا ويزداد كقار مركي حتى يورليج هذا مرة كذا عضو كوب وسوق هذا مانشستر جدك وقشبة أو صار يبتي وكا بريمير ليج كدي مركي حالي أرسنال أتكاتي جانس كذا وكورده ريالكا كهر أنت سن نورد لندن دربي أين أتكان أرسنال تضباتي اللي بقول كيبا أيها السادلني إنه يقول سكرت بريمير ليج لكن وإثبات الشدة ترادو مركي كبدين توتنهام سيديتن إلا بقول كيبا يجا الله سادلني يقول سكران بريمير ليجا إنك سيتي gacanta ku haysto kulmo u harsan oo dhan haday badeen Champions noqon doonaan laakiin Arsenal iyana wax weeyaan waa Janis ugu bad iyaga la siinaya dabcan kadib guushii xalay waxay muujiyeen inay horyaalka wali rabaan oo ay u tartamayaan oo ay qaadi karaan inkastoo Pep uu shaki qabo uu leeyahay aniga tabar ma isku ogi oo inaan ciyaaruhu noo dhiman aan wada badi karno ma dareensanay uu macna laakiin Arsenal arki doona waraadi iyagu ay badin doonaan marka taas waa taa xisa super computer midda ayuu qabaa wuxuu qabaa Arsenal in horyaalku qaadi doonto Man City laga qaadi doono boos Champions League super computer wuxuu qabaa in Liverpool afraad ku dhamaysan doonto Man United ku dhamaysan doonto Chelsea lixaad wareexal ku xumaaday ragii weyn oo dhanba heerka hoostana West Ham Burnley Wolves macnuhu Spurs inay badbaadi doonaan ay nimankan u qabaan taawata marka waanu eegi doonaa kulay ciyaaraha mid kasta u harsan waa kan Arsenal waxa ku socday Chelsea Brighton Everton Bournemouth City Newcastle Fulham West Ham Burnley Crystal Palace City waxa ku socda Ladies Forest West Ham Chelsea Arsenal Burnley Everton Brentford Bournemouth Aston Villa iyo Crystal Palace waa arkaysan kulmada labada dhinac yaa jilcanba is leedahay waa arki doona kulay meesha labadan ku kala dambeeyaan mid kale Yogres oo ayaantan ka jabnayd 2026 hadda ninku u saaran tahay ninkan la yiraahdo Victor Yogres xal weeriyahan weyn buu u muuqday oo macnaha bari ugu dambeeyay madaxa taagnaa laakiin xalay waa weynku u muuqday 2026 tartamada dhan waa ciyaaryahanka Premier League ka ciyaara ee tartamada dhan haysta goolasho ugu badan waa 8 gool sanadkan cusub aad buu ugu kacstay ninka kan waliba 10 gool Premier League buu haystaa 15 gool wuxuu haystaa tartamada dhan siisakan oo Arsenal u dhaliyay wuxuu noqday ciyaaryahankii ugu gool badnaa season cusub tan iyo Alexander Isak 17 ninkan siisakan 15 gool inuu dhaliyay cimaamadu Isak ba ugu dambeeyay runtii ciyaaryahanka debutkiisa ugu horeeyay seasonka safashadiisa ugu horeeyay goolasha gaara mid kale dhanka marka laga hadlo Big Six goolasha laga dhalay season wuxuu kala mid yahay ninka la yiraahdo Haaland macna in kulan Big Six laga dhalay 2 gool hal habeen Haaland baa soo sameeyay season Yogresna wuu sameeyay Woltemade wuu sameeyay Ekatike iyo Pedro midna ma sameeyay midaayo marka yaani kulan in laga dhaliya isaga iyo Haaland baa haysta runtii ininka kale taawata mid kale Ayse ayaa noqday playerka ugu horeeyay muddo 91 sano derbiga labadan ay ciyaaraan Arsenal Tottenham 4 gool season ka dhaliya ciyaaraha labada ay ciyaarayaan 4 gool ka badan macnaha hadda ninkan kulan saddex u dhaliyay kulan laba u dhaliyay runtii 91 sano ma ka dhicin derbiga nin maamula ee labada ciyaaroodba inta ka dhaliya waana ninka 8 gool ka dhaliyay Spurs shantii ciyaar la soo dhaafay ee uu ku rimaaday min Palace ilaa iyo halka kan macnaha waxa la weydiiyay war adigu waxa kala ma haysmiya wuxuu yiriniyo maxaan sameeyay koox kasta inaan gool ka dhalwaan jeclaa uu leeyahay laakiin kuwan ba ilaahay amarkiis ii jilcan buu taagan yahay waana Tottenham tadaya oo Man City ay ka shoogaysa waade ay wax ka qaadi karin Arsenal u jilcan tahay laba kulaad Tottenham ugu dambeysay inay ka badiso Arsenal Man City hadda la soo celiyo Tottenham xalli hadii la soo koobiyo Man City loo geeyo nimano ilaahay ku dhibay marka taas waa taa halka Arsenal intaysan Tottenham la ciyaarin ba aanu si wada ognayn si saadan leenahay war nimanka iska celi karaan iska cadahay
niman kan tanno markay labada isla ciyaaro iska cad waxaan leenahay war kuwan iska macli karaan wax iska xaqiiq waa marba macna Arsenal toon isla ciyaarayna waxaan noo sawiran intaan la baduuqayo mar dhif mooyaane nimanka markay la ciyaarayna war sanad isandayal soo socda xataa saan ku dhihi doonaa ilaa waa wax soo aragteen intaan sanadaba waxaad dhigi jirtay war Maxamed oo khalad baad naga galaysaa nimanka markaan la ciyaarin maxaad u dhahdaa yani miska celi kartiin waxaad soo aragteen siisaka kii kore war sanad qaadaysa ma soo aragteen habeenkii soo muhiim bay ahayd habeenkaas Ilaahay ka bixiyay kabweyn baa ka sheeteen kuwaas wada dhaafteena taas waa ta midda kale Xavi Simons balay waa ninka ajukator waa Barcelona buu ka yimaaday macnaha Barcelona ayaa Barcelona soo saartay macnaha sii qaadatay meelaha soo marmaray xariif laakiin xalay waxa lagu leeyahay runtii waa ku ceeyo meesha 7 jeer ayuu kubad lumiyay runtii waa sisakan cayayaanka ugu badan ee hal habeen intaas kubad lumiyo taas waa ta saacad ugu dambeeyay reer Premier League waxay ku dugteen nimanka dhan ugu qaadista badan taariikhda Champions League ee Real Madrid waxay taagan yihiin Real Madrid hadii la keeno Premier League kama soconayso horyaalna maba qaadi karaanba ya rag waaweyn Alan Shearer Wayne Rooney laba lajino weyn ku dar Welcott waxay taagan yihiin Real Madrid Premier League xabad kama keenayso wax ay ka keeni karaan ma jirto ileen bulukeeti Premier League ka noqonayaan ya ilmaha qaar xataa iska macli karaan Premier League ileen runtii yab ayaa ka dhacay ugu dambeeyo taageerayaasha dunida Madrid soo yaabin xileen war Premier League la sheegay mad nageysaan amal alcumuum Welcott wuxuu taagan yahay Real Madrid aniga meel kale uma hayuri top 4 uma hay Madrid uuri kaalidis diyaad iyo meelahaas ku dhamaysanayeen Premier League yimaadaan oo cad way xanaaq karaan Madrid taageerayaasha markay maqlaan uuri laakiin daacadii ya Madrid Premier League kama socon karto lee booska hadda uu leeyahay diyaad senska la soo waxa ku dhameystay kooxda Brighton baa ku dhameystay marka wuxuu taagan yahay Brighton iyo aagooda ku dhamaysanayeen uuri nimanka ka Madrid yimaadaan Premier League wuxuu taagan yahay marka iska daa inay horyaalka qaadaan xataa top 4 ma galiyaan buu ku leeyahay Welcott oo laacibkii hore ee kooxda Arsenal ya taasoo shock badan gelisay mid kamid ah kooxaha ugu weyn dunida in la yiraahdo xataa meelaha bay ku dhamaysanaysaa iska badda horyaalka midda kale Welcott marka wuxuu taagan yahay garoomada qaar Madrid ay ku dhibaad noon doonto homekeeda marka laga tago Premier League kulamada ay ku ciyaari doonto gurigeeda laakiin kulamada awayga ah ee Premier League way ku dhibnaan doontaan macnaha way ku dhibaatoon doonaan Madrid wuxuu yiri ilama ahan buuri Madrid inay baxdo si easy ugu soo badiso garoomada Crystal Palace Leeds iyo Stade James Park ee Newcastle ay leedahay ilama buuri easy inay ku soo badin doonaan garoomada Crystal Palace iyo Leeds ku soo badin karaan Madrid way ku soo dhibaatoon doonaan garoomada inay ku soo badiyaan ya wuxuu sidoo kale sheegay in jabiga Ingiriiska uu adag yahay qabow roob ya Premier League midka wuxuu yiri waa horyaal dafdaf ah Madrid dafdaf kama bixi karto leeyahay runtii ninkaas marka Madrid dhulku la galay shirba markiisa la weydiiyay waxa adii maxaa leedahay shirarow Madrid Premier League ka ciyaar leh wuu ku raaci waayay wuxuu leeyahay maya ilama hamida in Madrid top 4 ay waayi doonto Madrid still way heli kartaa top 4 gool badan way dhalin doontaa in badan waa laga dhalin karaa laakiin wuxuu leeyahay Madrid James kama noqon doonto horyaalka ma qaadi doonto Premier League day Madrid timaado ilama aanu Alan Shearer waa legend kaliya hatta isleedin Welcott microphone hada dhow iska qaad isleedin oo wanin ciyaariyaan wax badan soo qabsad isleedin Alan Shearer oo legend weyn wuxuu taagan yahay Madrid James kama noqon leen horyaalka ma qaadeen laakiin top 4 way iska leeyahay Wayne Rooney asna dad leediin legend ma ahayn waa ninka waa inuu ugu gool badan taariikhda F1 ka hadlayna wuxuu leeyahay Real Madrid way ku dhameeyay doontaa top 4 way helayaan afarta sare laakiin wuxuu ku raacay qolyaha kale wuxuu yiri kulmada awayga ah ee Spain laga ciyaaro iyo ku Ingiriiska laga ciyaaro garoomada kooxaha Ingiriiska in la booqdo ayaa daran buu leeyahay runtii marka alcumuum waxay Welcott uu qabaa marka Real Madrid yaani horyaal lama ku guuleysan karto top 4 ma heli karto laakiin falanqeesh kale waxay yiraahdeen top 4 way heli karaan laakiin horyaalka ku adkaan doona marka Madrid bulukeeti ka noqonaya leer Premier League hadii yimaado taawata waa Madrid isku diyaarinaysa Champions League Saudi waxa la soo wariyay yarkii fini yaani caayay waxa la ganaaxay ciyaartan inkastoo la leeyahay 3 ilaa 2 usbuuc iska qaadi jirtay ganaaxa ciyaaryahan in laga soo macnaha la baaro investigationka laakiin waa la soo hormariyay hal ciyaar jaa uu qaadanaya kulkan uu ganaxnaan doona leeyahay runtii oo ma ciyaari doon ilaa ninkan uu ciyaara madaqana Real Madrid buu ciyaara ganaax waadiya arinta baaritaanka oo UEFA sida Sky Sports Selekol uu sharxay wuxuu leeyahay baaritaanada marka qof la ganaaxayo waxay qaataan 3 isbuuc meelaha ay qaataan laakiin ninkan arintu wal boobsiya le runtii ninku waa Real Madrid waa ya warkana laga kala tuuro waa macnaha weynka waa ninkii hoja kulkan waa ganaaxay uu maqnaanayaaba oo sida ayuu ku seegay mid kale Mourinho ayaa Saudi waxa la sheegay in uu rabiyo inuu rabin inuu warbaahinta ula hadlo ka hor iyo kadib ciyaarta marka sharciga wuxuu qabaa marba hadii qofka la ganaaxo oo ciyaarta uu ganaax ku maqnaanayo raaso uu qaatay booskiisa cid kale gali karta oo u hadli doonta laakiin Mourinho wuxuu ka fogaanayaa arinta Vini in wax laga weydiiyo dhaxda ka galo kulanka hore ayaa wax laga weydiiyay
dad badanna way cambaareen Vini oo maxay Mourinho waxay yiraahdeen ninkii la caayay inta difaacileed Mourinho yaa waxa leedahay Vini asaa rabshaalow ah oo garoon walba uu tago buuq uu ka tagay hadkii todobaadkan isuuna xataa markuu hadalkaas yiri kii isuuna waa ka dhacday buuq kala ka dhacay markuu soo galay iyo markuu gudaha soo galayba buuq baa taagnaa iyo oorin xataa ilaahayeen war iska dhimo waa ku kirahsanay waa ku dhibsanay lahaayeen Vini lahaayeen marka cunuga asna waxa wuxuu galay oo laga goyn waxa is leedahay waxa weeyaan ninkan rabshoolo weyn buu soo ahan jiray waligiyo taageeraasha ka xanaajin jiray Vini waxa xataa qirmintaas Mbappe wuxuu yiri ninkan horta dhib badan waa soo geystay taageeraasha waa ka xanaajin jiray laakiin bis weynada wanaagsan waa ku weynada ma laga booti u leeyahay laga dhaafo waxan laakiin ninkan asaga xataa rabshadiista weyn buu soo ahaa waligiiba intuu Mourinho soo ciyaaray ya marka taas waa taa marka Mourinho wuxuu marka kadib hadalkii maalid uu yiri kadib microphone afka laga soo gelin doona marka inuu hadlo dhan ma doonayo ila hadalkii hore ayaa Mourinho lagu haystaa uu yiri kan asaab buuqle ah meel kasta oo joogo khaylo uu ku jira taas waa taa mid kale wax weeyaan Masantuano Argentinkii waa la waayay isna Madrid u ciyaaray Alonso uu cimaamada jir laakiin iminku hal daqiiqo tamaan ciyaarin zero daqiiqad weeyaan saddexdii ciyaar Real Madrid ay ciyaartay si kinama ciyaarin kan baa weey runtii dhinaca kale Valverde iyadoo 13 ciyaar wali ay harsan tahay season-kan la liigu wuxuu la sintay caawintiisa ugu badneed season uu sameeyo oo 7 caawina taasna waa inta Yamal soo saacad ugu dambeeyay gool caawi waxay taas ugu dhigan tahay season-kan ninka la yiraahdo Lamine Yamal horyaalku wuxuu ku lug leeyahay 19 gool oo dhalis caawin still ogow waa in yaro 10 sano jira wali waa caruro waxa loo carbinaya sida faras colaadeed yaabis gaaray wali warku soo wada wiilkan igu yaaweyn waliba intuu Barcelona hadda u ciyaarayo 81 gool ayuu siiyay kor daad 10 sano jir ayuu wuxuu siiyay 81 gool dhalis iyo caawin 40 uu dhaliyay 40 gool uu caawiyay Yamal maalin waa laga yaabaa in isaga burro oo xogaa aan bandhigiisa ama ka sheegay waa laga yaabaa laakiin waa hal maalin buu waxa ka waan sida barnaamijka ku dhisan yahay weeyaan oo raado wareenkii waa ka jabsaneed wax ma hayo waa midna waxa waaye wax qofka aad ka hadlaysid inuu ninka habaan yahay midna waxa weeyaan inaad ku salaysid kaliya bandhigaas kan ina hal kulan bandhigiisa wax kaga sheegay mooyaane oo u liito mooyaane hadda ninkan nin banaankiisa ku dhacay waa ibtilawa wareema wax 10 sano jir ilmaha qaar academy ku jireen 10 sano jir aqligiisa uma dhambalnayn 40 gool buu haystay 40 gool uu caawiyay 80 gool ayuu ku leeyahay da'dan marka waa laga yaabaa maalin uu bandhig liita sida maalin weed oo kale inaan ku burro laakiin kama shakinayo haybadiisa iyo xirfadiisa ajayna waa kaas tijaabad caafimad buu dhameystirtay Barcelona ugu wareegay hayaabin maxamed askaftan low ya macna mid kale ajay maxna uu soo cilna ileedin ajay macna ajis buu dhameystirayo ee warkii ma la wadaayo adiga darad waxaad ajay Barcelona rabtaa isbaan buu soo aadaa Barcelona buu imaan doona ma ayna warka kadib warka ajay kale waxay ku timaaday oo maalinka ajayda intirna say ku imaaday ajay hadan maalin kale ka sheekay waxay ahayd ajaygiya Barcelona lagu qabsaday ee hadda maanta marka maxaa u keena warkaas waxa uu keena ee ajaygi ee tijaabada marooyo marka ee tijaabada u dhameystirtay idiga marka waxa ileedii maxamedow hadan ajay ma uu soo celinay ee warkii ma dabaraacayo adiga ma bixino ajay ma doonino marka ninkii tijaabo mid kale adiga iska kaftaba aniga waxaan malakasayo ku bilowdaan lakasayo isku bedelaan war aniga waxa jirada soo forjo jiray war aan Bukayo Saka waa qosli jiray haddana maxaa waa the goat oo Arsenal waa macna goatka kaftanka ma ayaa yani ninka Arsenal ugu muhiimsan waa ninka Arteta markuu kooxda yimaaday daqiiqadaha ugu badan Arsenal u ciyaaro weeyaan waa ninka jajaban waa aragteen macna waa ku daalay ka xusuu ciyaaray ninkaas u jeed oo kaftami jiray aniga bariga idaacada Arsenal waa ka Saka iyo waxa iska wataa iska dhijir haddana waa weynka waa war weynada wanaagsan waxa anigu ku soo kaftamay aan ku ogahay ninka la yiraahdo Camavinga idaacad biran kasoo waxaan dhijiri Real Madrid saacadan Camavinga waxa la yiraahdo call live risk doonaan dhijiri kama ayay watiir dhinac kasta ku galay garoonka waa nin guuleystay maanta wax badan ku guuleystay weeyaan kama waa ku soo kaftami jiray aniga ku baarsho ciyaaro baldi iyo wax noocaasna oo yaryarna waa isaga soo kaftami jiray ya Ben White iyo waa ku soo kaftami jiray marka waxaas ma waa laakiin markii dad White waa nin weynka waa Saka waa weynka waa kama waa weynka waa baldi waa weynka waa ilmi Barcelona yariska waa koreen on dhigi jiray ilmahan iyo aan dhigi jiray waa weynka hadda waa Maxamed Yamal ma amaano marka waa iska sidaga marka aan gudubna ajay oo soo celin kuwan